Meglio. Ma non ci mai caso. Buonasera. أحمد سال علي، محمد علي وسامة، محمود عبد الوكال، محمود عبد النور، علي صالح عبد الكريم، عبد القادر معه عمر، عبد الرحمن حسين عبدي، محمد آدم حسين حيلة، آدم حسين وسامة، حسن حاج محمد، يوسف علي إبراهيم، طاهر نور غافي، علي عيسى سلوى، عمر أحمد عمر، مرايق جلال أحمد، أمان شعالي سمسر، عبد القادر شريف فارح، احمد عمر اسخري، نور علي حسن، محمد آل احمد، حسين حسن علي، حسين موسى. وحا شغلكم مغن فارع محمد علي حامد، محمد يوسف احمد، محمود الشريف اسماعيل، احمد عبد الله كعب عبدي، محي الدين محمد كالوي، محمد
علي محمد أحمد عبد السلام حاج محمد عبد الله جام محمد محمد الشيخ علي منصر محمد علي الشيخ آدم محمد قاني محمد ولد علي صالح نور محمد عبد الصبرية طبعا رجلي مدام عجيبتها كنت جاي انا عدت انه عدت كانوا تنضمين هذه اللي معنا ده كسر سيدين بقى شعبيه سؤالات يا سبيك انا سيو انه وودي ان فكر بني ما كان بني كودي بالسيقه marka ay inoo dhan tahay codkii sidii markaa dambe lagu bixin lahaa intaan codda la qaadin guddiga siiqada cabdullahi cabdullahi waxayna soo abaabushay qolaha ku daro شاء قدومية waxaan u istaagay arrin socodka shirka saysa dadkuna magaalada jooga ay samada la jiro afartanaya ama marka qaarkood maqan ma suuroobi karto marka siiqada la akhriyo ama yaan la akhrin haddayan jirin volontaar ama rabid dadka maqan inuu meesha xaaga ku noqdo waxaad moodaa hawshii la waday oo dhan inay noqonayso hal bacad lumis sidaa daraaddeed aniga waxay la tahay xeeroosaar waana samaysteen baan filahayaa dadka maqan sida xeeroosaarku qabo in loo qoro inay yimaadaan goluhuna hubiyo inay gaaraan waraaqu hadday imaan waayaanna waxay la tahay inay golaha la gudboon tahay in la bedelo markeedaasaan ka hadli doonaa sida loo bedelayo iyadoo aan u arkayno dastuurkaani inuu yahay mid ummadda soomaaliyeed dan u ah waxay noqonaysaa aqlabiyadka ay danta soomaaliyeed u aragto inay hawsha ku wado ayay noqon doontaa iyadoo weliba sharciga u yaala waa fujinaysa waa mahadsanta horena waa loogu qoray dadka qaarkiis waana u xusnay dastuurkii lagu kordhisi lahaa shuruucda dalka ahamiyada macnaha dastuurku leeyahay baa loo badiyey tirada marka anu waxaan qabaa yaynaan inagu ka raacinun xagga ha socotada aynu ulajeedada loo badiyo waxaan ragnay haddii aan madaam cajeedada ay ku dhignayd inaan codka inoo codkina uusan dhamayn meelihii xildhibaanada ay ka soo jeediyeen golaha shacbiga su-aalaad iyo saxiix inaan sii wadno أمام الأمرية
xabsiga ammaankiisa sida aadkaa loo ilaaliyo ee la yidhaahdo community Samuel Imaniera oo lagu eedeeyey dacwado la xiriira qoraallo propaganda iyo majaxaabina markii toddobaadkii la soo dhaafay damiinta lagu sii daayay Mr. Imaniera waxa uu sheegay in qolkeygii lagu hayay qolkaasi oo ku yaala garabka qaybta dadka waalan lagu hayo ee xabsiga magaalada Nairobi uu sheegay in qolkaasi xabsiga 24 saacadood lagu hayay